Salaamu calaykum. Beri waxaa jiri jiray geedkan iyo geed kale oo ka soo horjeeday, waxayna ahaayeen laba geed oo deris ah. Geedkani wuxuu ahaa geed dadka martigeliya oo ay harsadaan xayawaanku. Geedka kalena wuxuu ahaa geed aan oggolayn in la harsado. Odaygan oo ahaa safar oo aad iyo aad u daalanaa, waxa uu ku nastay geedkii xaasidka ahaa. Geedkii waxa uu ku yidhi, waryaa iga hoos kac ayuu ku yidhi, balse odaygii safarka ahaa waxa uu ugu jawaabay, waan daalanahay, meel dheer ayaan ka soo safray, aniga ayaa kaa kici doona. Balse geedkii waa uu diiday in agtiisa ama hoostiisa lagu nasto. Waxa uuna odaygii isku dayay inuu seexdo, balse waxa uu ku soo daadiyay geedkii midhihii geedka ka baxay si uu markaasi odaygu u dakhramo. Odaygiina hurdadii waa uu ka kacay isagoo markaasi xanuunsaday. Waxa uuna yidhi, war maxaad ii dakhraysaa? Waan kaa kacayaaye, iga daa geedahan aad igu soo tuuraysid. Geedkii ka soo horjeeday ee ay deriska ahaayeen ayaa waxa uu ku yidhi odaygii, aniga ayaad igu nasan kartaa ee aniga ii kaalay oo hooskayga ku naso. Balse odaygii waxa uu yidhi, waan nastay, waanad mahadsan tahay, haddana waxaan u kicitimayaa dhankaas iyo gurigaygii. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa yimiday daanyeero iyagu meelo kale ka soo kicitimay, waxayna u yimaadeen geedkii markaasi tufaaxa ahaa ee xaasidka ahaa. Waxayna ku dhaheen, geedow waxaan rabnaa korkaaga inaan ka samaysano guryo, ma degi karnaa halkan oo aan markaasi aan ka dhigano hoy, isla markaasna aan ku hooyano. Balse geedkii waxa uu yidhi, anigu ma ogoli ayuu yidhi inuu qofi harsado ama qofi uu midhahayga cuno, ma ogoli, imana degi kartaan ayuu yidhi. Daanyeeradiina waa ay ka xanaaqeen hadalkii ka soo yeedhay geedka. Balse geedkii cambaha ahaa ee ka soo horjeeday ayaa u yeedhay daanyeeradii, waxa uuna ku yidhi, aniga ayaad isoo degi kartaan, midhahaygana cuni kartaan, halkan ayaan idinku martigelinayaa ee soo dhowaada. Halkii ayay degeen isaga oo ay cuni jireen geedka midhihiisa. Waxaa goobtii yimiday niman markaasi ka ganacsada geedaha, isla markaasna jaraa oo suuqa u iibgeeya. Waxay u yimaadeen geedkii miskiinka ahaa ee cambaha ahaa, waxayna dhaheen, geedkan ayaan goosanaynaa. Balse waxay arkeen daanyeeradii kor ka saarnaa. Daanyeeradiina waxa ay ku dhaheen, ma goosan kartiin geedkan, umana soo dhowaan kartiin. Oo geedkii miskiinka ahaa waxa u hiiliyey daanyeeradii deganaa. Waxay u yimaadeen nimankii goosanayay geedkii xaasidka ahaa ayay u yimaadeen, waxayna ku bilaabeen gudin. Waa uuna qayliyay geedkii isagoo ku dhawaaqaya, ibadbaadiya, ibadbaadiya, midhihiisiina ay dhulka ku daadanayeen. Geedkii cambaha ahaa ee ka soo horjeeday geedka kale waxa uu ku amray markii uu arkay saaxiibkii oo qayliyaya, daanyeeradii waxa uu ku amray in ay caawiyaan saaxiibkii. Balse waxa ay dhaheen daanyeeradii, ma caawinayno annagu geedkan, hadda ka hor ayuu diiday inuuna martigeliyo, isla markaasna aan harsano amaba se aan cunno midhihiisa. Balse geedkii waxa uu yidhi, waa deriskayga, waxaan rabaa inaad caawisiin. Waayahay ayay ku dhaheen, waxa ayna qaateen amarkiisii iyagoo soo fuulay geedkii kale. Nimankiina waxa ay ku amreen daanyeeradii inayna jari karin geedkii, balse nimankii waa ay diideen. Daanyeeradiina waxa ay bilaabeen in ay ku dhagax tuuriyeeyaan tufaaxii ku yaalay geedka. Nimankii waa ay xanuunsadeen, waa ayna iskaga carareen meeshii. Geedkii tufaaxa ahaa ee xaasidka ahaa waxa uu u mahad celiyey daanyeeradii, waxa uuna ku yidhi, aad ayaan idinku mahad celinayaa, khaladkaygiina maanta ayaan ogaaday, hadda kadibna waa aad i hadhsan kartiin, waanad cuni kartiin midhahayga. Balse waxay ugu jawaabeen daanyeeradii, geedkan ayaa ka dambeeyey inaan ku caawino cambaha ee aad deriska tihiin, isaga u mahad celi. Maalintaa wixii ka dambeeyey geedku waxa uu noqday mid la harsado, dabeecadna fiican. Sheekadan waxaan ka baran karnaa daawade, haddii aad noqotid qof dabeecad fiican, in ay dadka oo dhani ay ku jeclaan doonaan.